Waa tahay dib ayaan obid u soo noqday. Maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay qiso yaab leh. Qisadan meel ay ka dhacday iyo waddanka ay ka dhacday iyo qisadan ma tahay mid run ah iyo mid been ah. Waxaa kaga ogaan doontiin muuqaalkan qaybtiisa dambe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada YouTube channelkeena ST21 oo laga soo gaabiyay Somali Tijaabo 21. Fadlan YouTube-ka haddaad ku cusub tahay waxaan ku wanaagsan inaad subscribe saaratid si aad ugu mid noqoto saaxiibada ugu horeeya ay u soo dhacaan muuqaal walbo aan bartana soo gelin. Horta waxaan leeyahay Ramadaanku wuu dhamaaday, maalmo caadi ah la soo galay. Insha Allah waxaan soo badin doonaa qisooyin diiniga ha ahaadaan, qisooyin oo maadi ah ha ahaadaan, qisooyin xikmad ku deesanta ha ahaadaan. Insha Allah waxaan soo badin doonaa qisooyinka. Maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan nin sameeyay waxyaabaha ugu qariibsan adduunka. Uu nin sameeyay waxyaabaha ugu qusulka badan. Qariibsan marka ka dhahay waxaa la wadaa qof wuxuu suubin karin. Qof wuxuu ku quslayo nin sameeyay ayaa maanta raba inaan muuqaalkeena diiradda ku saarno. Haddaba ninkaas magaciisa waxaa la yiraahdaa John Bon. Ninkaas magaciisa waa nin John Bon la yiraahdo. Wuxuuna ku dhashay dalka Mareykanka, gaar ahaan magaalada Minnesota. Ninkani wuxuu u suubiyay gurigiisa ayuu iska qaaday wax yaalo oo dhan. Hadday ahaato koronto, hadday ahaato biyo, gurigiisa wax yaalo dhan ayuu iska qaaday. Korontada, mobilka, qadka internetka wax yaalo ayuu isku qaaday. Wuxuu fiiliyay ma noolaan karaa 16 hours, 16 saac ma noolaan karaa cunto la'aan, qad la'aan, koronto la'aan oo kaligiis ku jiro qol mugdi ah ayuu burooway. Ninkaas markuu qolka soo baxay wuxuu la kulmay in uu la noolaan karin. Ninkaasi saas ayuu sameeyay. Magaciisa waxaa la yiraahdaa John Bon. Runtii waa nin iga yaabiyay. Wuxuuna suubiyay waxyaabo aan weligeed bini'aadanka ku diiran in uu suubiyo. Ninkaas waxaa leenahay haddaan nahay YouTube gacan ayaa u taag. Waxaa jirto Facebook oo hadda sameeyay. Facebookaas kumatiga ugu hore ayaa soo dhigay. Facebookaas booqda like saara. Facebookaas waxaa leh page-kaas ha qoran Somali Tijaabo. Ha isdhimin hoos kumatiga ha isdhimin inta raadi lahayd Facebook tagi lahayd oo qori lahayd magaca inta raadi lahayd ha isdhimin ayaa leeyahay. Hoos kumatiga ku soo dhigaya. Kumatiga horu aad kadib ku dhufo linkiga oo kumatiga toos wuxuu ku geynayaa Facebook. Hadda Facebook